waa tahay saaxiibayaal saad u jeedaan waxaan maanta xafiiskiisa ku soo booqnay taliyaha ciidamada asluubta puntland jamac Cali jamac ku soo dhawo warbaahinta dawladda puntland mar labaad mahad baa idin celinaya mahad ilaah baa iskale mahad baa idin celinaya aad iyo aad baa runtii raali idin ka nahay ilaahay idin karamayo hawl fiican baad ku haysaan annaguna dhinacyo ka idin ka haysan wixii shirkada noo ahay meel ugu qaybeen islaanimi tayada waan qabanaynaa waa tahay maanta halkaan kugu soo booqanay taliskii waxa weeye oo ciidanka asluubta maadaama tahay taliyihii ugu sareeyay ciidamada asluubta bal warbixin guud naga sii kulliyadda iyo qaybaha kala duwan ay ka koobanta hadda halka aad inoogu timaado waxa isku jir laba isku jirtaa waa taliska guud ee ciidanka asluubta iyo kulliyadii kulliyadatan shan meelood baa waxaad arkay lix qaybood baad arkaysaan meel dumarku leeyahay meel saraakiishu leedahay oo hurdada ah iyo afar meelood oo isticdaan ciidanka caadiga ah intii ilaa dable ilaa iyo isbitaal inta u dhaxaysa KS inta u dhaxaysa isticdaan waxaad ku arkaysaa nin laba galaas oo waaweyn oo midkiiba 60 qaada oo ku dhigta waxaad arkaysaa kushiinkii waxaad arkaysaa meeshii cunto lagu cunayay meel nidaamsan oo kulliyada oo qiimo leh waad ku arkaysaa taliska waad hadda joogtaan waxay ka kooban tahay toddobadaas ugu yaraan 7 kale hadii nagu biirto way naga yartahay waxaan isu dul saaranahay saddex xafiis iyo laba xafiis inta kooban runtii way yartahay laakiin shaqada waxay nagu socotaa si aan caadi ahayn oo aad iyo aad u fiican nidaamka aan ku fiirnayna waa nidaam qoran oo nidaamsan ee maaha midaan inta maanta soo ku xiro la nimaado maaha waa tahay inta badan ciidamada asluubtu shaqadoodu waxa weeyaan waa ciidamada maxaabiista ee fayadhowrka iyo halaaqda haday tahay iyo dhinacyadaas ay qaabilsan yihiin bal guud ahaan waxaad xog naga siisaa maxaabiista meeshan ku jirta iyo xabsiga weyn xaaladiisa iyo say ciidamadu ula dhaqmaan adoo ah taliyihii ugu sareeyay xaruntan ciidanka asluubta waxa la baraa la dhaqanka maxaabiista bilmetel col maaha waa laba saaxiib maxbuuska iyo askariga waliba hadii nidaam ahaan la eego walaa maxbuus isul taagan oo is haya hadii yagayeen iskolaana dhibaato dhacaysa waxa la baraa nidaamka lagu dhaqo maxbuuska waan gartay aniga fikrad ahaan Mohammed ahaan xabsi waxaan ka aaminsanaa in taliya horta aniga waliga leema xidhin laakiin xabsi fikradan ka haystay wuxuu ahaa meel dadka lagu jujuubo la isku ciqaabo qofka qol inta la dhex geliyo de noloshiisaba meel ciqaaba xabsiya laakiin hadda indhahaygu markaan soo galay kulliyadda ciidamada taliskii booliska aan soo arkay jeelka taliska aan soo arkay xabsigii aan tagay macnaheedu sidii hore aan fikradii waa ka bedelay bal qaabka maxaabiistan xukuumadooda iyo siday u kala baxaan iyo dambiyada u kala xiran yihiin iyo bal xog guud nala wadaag horta dalkeena wax ka dhaca waxa dambi adduunyada ka dhaca wali waxyaan dheer reebaajido hadda dhibaatooyinkan maartay dambiyada hadda soo kordhisay shacabka kale barcabadaada iyo dulka jin baa jira dambiyadaas oo kala gedisan ma meesha lagu soo xiraa waxa ugu hooseeya nin dhaqan xumo sameeyo waalidka soo xiray ilaa iyo dil inta gaadha intaas isku ka koobantay ma tirin karo waa wax bad fara badan weeye intaas ka koobantay xabsiga waxa soo galaa saas ka koobantahay hadda maanta hadaan ku xiro hal bil aad joogtay inaad igu dar inaad taahdid haddaan farsamo qoon halka adigoo jaahil aad iman karaysaa bal wax yaqaan ka baxaysaa hadda bilanta halka wax ka baxay fardiyamada yaqaan wax ka baxay nin koranta ku shaqaysanaya wax ka baxay nin alxanki yaqaan wax ka baxay nin muxuu garanaya si loo sameeyo bulkeetiga wax ka baxay nin guriga dhisay yaqaan hadii adigu raxad wax ninkii meesha saas la kulmaya marka meeshan maaha meel ciqaabeed waa meel aan ku cilno dad ku dhaqan cilno iyagoo naamsan aan rabo inay ka baxaan oo dadkii ugu noqdaan waa sida qaybta caafimaadka iyo nadaafadda ee xabsiga horta runtii awoodan xabsiyada caalamka oo dhan baa mahayn karin waa wax ugu daran oo bini'aadmiya waxay gacanta ku qabtaan xabsiga ugu daran sababtoo hadda neefka xoolaha daaqaya iyo neefka meel lagu xiro isku hawl maaha kan daaqaya waa bilmetel haddaan ciidan ka eegno ninkan xabsiga joogin dee suuqu ka qaraabo karaya dadku u tegaya hadduu ganacsi oo furan karaya laakiin ninkan haya maxbuusku halkaas taagaya ninkaas lagu qiibiyay ninka hadduu ka baxo waa lagu bedelaya waa lagu xiraya runtii haddii adeegtid dhinaca eegto askariga dhibtaas haysa xabsiyada wuxuu u baahan yahay nidaam maalin walba nadiifada hadda waxa loo qoray nadaafad aad u fara badan oo UN u qoreen walay maalintii waxa ku baxaysa maalintii oo yana $250 halkii maalin lagu talagalay intaas bil lagu dhiftay lacagta inta lag marka ma hayno UN ka waxay bixin jireen hadda waxa laga rabaa dawladdu inay bixiso marka halka waxa lagu bartaa diin ahaan iyo maad ahaanba
weli waxaanu jecelnahay xagga skillska farsamada xaqooda inaan u badino waxay baranayaan oo ninku markuu tagoba la qabsan karo magaala la qabsan karo diintana si fiican buu bartay hadda tagta xabsi waxaad heleysaan kuwa ila tafsiirkii dhameeyay quraanka dhameeyay waa taliya aad baa u mahadsantahay